السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضوء يركسو دوادا برنامج كارا oo aan kaga hadlayno halgamay Maxamed Ibrahim oo muddo 5 cisho ku xidhan magaalada Jigjiga waxaana barnaamijka caawa marti uga Mustafa Cilmi oo si dhow ula socda xaaladda Maxamed Ibrahim. Mustafa maxaa lagu xidhay Maxamed Ibrahim say u xijraa waa maasantahay bisle horta bisle waa markii labaad Maxamed Ibrahim la xidhayo markii labaad la xidhay Maxamed Ibrahim xidhayga Maxamed Ibrahim runtii wajiyo badan baa loo qaadi karaa laakiin wax cad oo sheegay wali ma jirto Maxamed Ibrahim soo sheegtay 5 cisho xidhan yahay bilaa maxkamad waxyaalaha ugu dhibka badan ee jira waxa weeyaan qolbu korka kaga xidhan yahay keligii korku kaga xidhan yahay qolka 24 saac qol criminal oo terrorist amal ah loola dhaqmayo uu korka kaga xidhan yahay qolka uu korka kaga xidhan yahay waa xabsiga dhexdiisa dad xabsiga dad badan baa ku xidhan qolkaas korka kaga xidhan yahay waa 5 cisho xidhan yahay lama maxkamadayn sabab loo xidhay ma jirto haddaan ku bilaabo Maxamed Ibrahim markii la qabanayo waxa laga qabtay hotel Istanbul baa laga kaxay waa la soo wacay wuxuu yiri waa lagu xidhay wuxuu yiri hadaad xidhaysaan de waxaan sameeyay ma garanayeen imaad waxay ku dhaheen ma noo imow wuxuu yiri de xilligan habeen baa la soo wacay sidii ma imaanayo maalintii labaad baa la soo wacay waxaad sheegaysaan ma garanaysaan hadaad xidhaysaan idinkoo warqadii maxkamadda waarantii wata imaad boolis meena u imaan baaraa u yimaad dadka la dhaho darcad ninkii wuxuu ku yiri warqadda man ku wadnaa waxa lagu yiri ninkii warqadii waa maxaad igu soo xidhay anagu maana ku xidhan kor baa laga xidhay kor marka laga xidhay markii dhawaa aqalka ugu sareeyay deegaanka madaxweynaha baa ku xidhan buu si afmisharima u sheegay Maxamed Ibrahim uu raacay jeelkii uu tagay si loo sii wado qolba korka laga xidhay Maxamed anigu alaab baan qaadnay waan u geynay qolkii markii korka laga xidhay Maxamed Ibrahim waxaan nimanka waan wadinay ninka maxaad ku haysataan anagu ma ogin kor baa laga soo xidhay شخص بقى حديبة warwaaran maxkamadeed baa qortane ma kor baa laga soo xidhay uu iska joogay Maxamed maalinta koobaad 24 saac sharciga dastuurka loogu talagalay maxkamad lagu geeyay lama geyn maxkamad qolkii qorka ka xina cid bin aadam inay aragtana waa loo diiday cuntada halka kor laga qaaday qof alla qof loo geeyay lama garanayo banaanka kor baa cuntada laga qaaday waa la galiyay gudihii markii la geeyay sidii ku xinaa maxkamad lama geyn 48 saac kadib baa maxkamad la geeyay maxkamadii markii la geeyay gudaha maxkamadda u galay ninkii maxkamadii garsooraha ahaa wuxuu yiri wuu yeeray maxaa lagu ad ku haystaan buu ninkii waday nimankii kiiska la rabay inay keenan waxa la yiri warbal Maxamed Ibrahim mursal sheega wax ku haystaan waa nin masuula صح waa nin kamid ah golaha dhexe oo naf waa la taliyaha gudoomiyaha oo naf صح runaantii waa dulqaadka ay kamid tahay ay muujinayso oo wanaag صح in nidaam yar oo fudud waxyaalahan oo kale waa markii labaad madax oo lef oo golo dhexa intii la iska xidho oo la iska haysto ma xilliga la doono si tikir fala jeesa laakiin kuwa xumaha fala xilligooda xumaha hayaan baa la dhahaa صح waa eraah waxaana la dhahaa taariikh la yarxam taariikhdu ma naxariisto qofku maalintaas maanta waa tikir fali kartaa laakiin berri ma tikir fali karaysid صح berri ma tikir fali karaysid even haddii lagu samro waxyaalaha ugu fiican waa waxa uu samirto صح daaminis waxay muujinaysaa hogaaminta jawxo xeel dheerida siyaasadeed ay leedahay muujinaysaa xukuumadda deegaanka waxay falayso صح gabdha la xidhxidho dad qabridaar lagu xabadeeyo xafiis calan laga dejiyo madax oona lefo la xidhxidho aflagaado intii meel la iska istaaga tiyaatar oo la iska dhaho wax dee aan qofku aan suurtagal hayn intii la iska dhaho meel la iska istaago meel Nairobi intii la tago waan kala jabinaynaa waan burburinaynaa waxyaaladii yacni decision maker ruux u tababaran decision maker adigu markii maxkamadii la geeyay ninkii waxa la dhahay ninka dib maxkamad soo haystaan kora laga soo xidhay ninkii dhanaa baaraay ninkii wada kor baa laga soo xidhay ha annaga de waan fahmi weynay qaacidadaas adigu ninkii garsooraha wuxuu cadayn waa la waayay maxkamadii wax xitaa wax u eeg Maxamed Ibrahim baa firtaa wuxuu yiri boolisku markay meelaha igu hayeen Facebook baa wax ku soo qortay bay ku lahaayeen صح adigu iska celiye ku dhaheen xasiyaas luubo mas'uuliyadaho de qof sharciga u hoggaansamay Maxamed sameeyay qofaan sharci meesha maxkamadda markii la joogo runaantii waxa in dadka sharci lagu dhaqo صح boolisku sharci ku dhaqaan marka waa la soo celiyay waxa la qoray la sameeyay in la sameeyo damaanad maxkamaddu way soo ogolaatay damaanadu صح in la damiinto lagu sidaayo way soo ogolaatay maxkamaddu qofkan qof cararaya ma intaas oo sunu jooga waa hogaamin urur صح qof mas'uul hogaamin urur weeyaan qof cararaya ma waxa la sameeyay kooxdan waxay sameeyeen markii la soo qoray way diideen maxkamadda damaanadu totally ba boolisku waxay dhan kor baa laga haystaa شخص بقى حدي
waraadee maxkamadda maxaad u geeyay u lahaydeen oo maxkamadda loo geynay haddii kor laga haysto maaba unsaa doontaan samaysaan okay markay damiinka ogolaadeen haddana maxaa keenay in la laba diido damiinka maxkamadda ogolaatay laakiin boolisku maxkamaddii boolisku contactigu inuu ka maqayaan mudaaba damiinis waxay caddaynaysaa in contactigu maqan yahay xidhiidhka inuu wasli in xidhiidh wax ka dhexeeyaa la rabaa moogtahay adigu maxamed ibraahim mustafa xidhay sababta u xidhay marka waa in la isweydiiyaa waa in la saaraa waxaa la dhaho in maskaxda laga tuujiyaa muxuu u xidhay sababtu waa maxay ma wuxuu u xidhay muxuu noqon karayaa waxay noqon karayso waa markii labaad marka hore uu iska xidhnaa intaasoo bilood buu iska xidhnaa intaasoo maalmood buu iska xidhnaa sanad ma xidhnayn waxaan ka wadaa intaasoo isbuuc lacnihii 3 week buu xidhnaa ku dhawaad bil ku dhawaad waa la iska soo daayay maxay yoon la xukumin la xamin waxba ordos ka tago dadka sida bahaayimta in sida xoolaha loola dhaqmo gabdhida khaliif inta in la ku xirnaa sida bahaayimta intii loola dhaqmo in la dhawr iska sii daayay laakiin xaqiiqada godka salka waxa la yiri hadalku waa biyo kama dhibcaanku waa salka qofku xumaha fala xumaha waqtigiisu qaadan doona فجزاهم سيئة مثلها لكن توحو وحان أمسان هاي إن محمد إبراهيم وقف مضن احترام إلا واحترام هلكن هو صوغلا وقف صحفية وقف أسو دودة ترى حقوق بني آدم وحو أسو دودة لبعتان سنة حقوق بني آدم لابد يكون اللي حدي قدها ويمادي فيلمان تضوبي تعدي قبل كدعي وقادين كدعي markii soohaan caada la gubay war dheer arrimahaas markii la gubay tacaadiyadu duubay waxay ahayd waxyaaladii qof walba uu garanayo qorxay markuu u joogay oo asagu gacantiisa wariye ku ahaa gacantiisa ku laatan kaasna xuquuqda iyo arrimaha tacaadiga bini'aadamka mas'uuliyad soo uu haya ummadda waa nin golo dhaxam dad badan oo 10 milyan oo joog mas'uuliyad u haya laakiin waxaad moodaa dad aan aqoonin loo tababarin loo carbinin leadership hogaaminta waa lagu dhaliil maxay ibrahim waliba dadka waa wax qof caana weeyaan cid aan aqoonin gobolka ogaadaya dad joogta aad ba u yartaa qof caan xitaa soo wuxuu dhaliil haduu dhaliilayo qadiyada ogaadeen iyo laakiin waa wax kale system kale jira nidaam kale oo gravity oo aan la fahmi karin marka waa qof iska xidhan waa maxbuusa waa qof u baahan in maanta garab la siiyo laakiinse waa qof ugu talagalay siyaasaddu hogaaminayo inuu sidan u galo tan waa tudhib yar ku weyn buu laakiin ayagu maxaa su'aasha meesha taala tahay faa'iido ma ku helayaan way ku daciifayaan fashil way ku fashilmayaan dadka dhalinyarta xitaa iyaga la xukumay dhalinyar waxa jirta wax la xukumay hadda bayro kale wiilka hal sano yaa lagu xukumay hadal baa lagu xukumay hadal af Soomaali oo hadal oo dhaliilo yiri madaxweynaha saas uu ma lagu faa'iideeyaa doontum bal sad dhowr asaga xaaskiisa iyo afar qof oo kale waa hadal dhaliila afar 10 qof oo asaga heerkooda ku nic u yaraan hadayna bulshada dhan wariyaad wadnaha ku xanuujinba 10 qof saawa qofka bulshada dhan matalaya si kala fogaan maanta waxa loo baahnaa in midnimada ummadda laga shaqeeyo in isku soo dhawaanshaha ummadda laga shaqeeyo laakiin hogaamiye urur ina inta iska xidhatid asgays xidhaygu systemka horta waxaan qadarka Allah ma gudubto waxaan qadarka Allah laakiin aan ka dhaxgalay Mustafa haystay ma jiraan waxa weeyaan haba yaraatee ay sheegeen oo yiraahdeen waxaas loo haystaa Maxamed Ibraahim ama Maxamed Ibraahim lagu haystaa ma dhihi karaan yaa dhahay boolisku ma oga maxkamaddu ma oga dambi baariyaashuna iyagu waa loo diray ayaga kor ka soo xidhan baa leeyahay soo qabtan baa leeyahay afar laba maalin dhan baa laga dul wareegayo soo waa un amar أوكي حاجة صح كبختي قارن حد يستوينا marka ma dhihi karnaa madaxweynuhu hoggaamiye gobolka ma taqaanay maamulka gobolka hoggaanka nabadgelyada gobolka dambiga hortaga gobolka xataa haduu wax jiro iyo waxa weeyaan iskala shaqada iyada maxaa sababay inuu madaxweynihi soo farageliyo waxa weeyaan shakhsi kamid ah mid kale ururka oo wana loo yahay inuu heshiis waxa weeyaan caalami ah ku yimiday in madaxdoodii waxa weeyaan siiro basiid oo dhib yar oo waliba jeesa la isooga xidho oo maxkamad la'aan xataa la isooga haysto oo ay sharci ku jiraan xabsiga ilaa haddana wax cadeyn aan lagu haynin maxaa ka dhalan kara la dhihi karaa horta ONLF oo heshiiska cid la soo gasheen xukuumaddan ma ahayn waxay la gashay xukuumaddan dad baa xukuma dadka madaxa ka garaacaya xukuma
waxaa xukunta adsaaba ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska arrimaha dibadda iyo xafiiska arrimaha gudaha iyo xafiiska nabad ilaalinta guud iyo xafiiska waxa heshiis la soo gashay xafiiska sare oo wanalaf arrimaha noocana inay u dhabar adagto ku qasban tahay because of waxay ugu qasban tahay daad biyaha halkan haddii halka kaa dhaafaan mar dambe biyaha kuma soo noqonayaan already 3 bilood baa u haray sida sharciga hadda loogu talagashay 2 bilood baa u haray xukuumadan kumeel gaar marka horena ahayd lagabana yaabana isbedelo kasii bedelan in la filayo muddo dhow marka waa inay dhabar adagto oo wanalaf taas ayada way xal laakiin dadkan meesha jooga Soomaalida aba waxay ahayd maanta inay ilaaliyaan wax kuwii hor ay ilaalin waayeen maanta in la garto hadday even xitaa waxay ahayd anigu san aaminsanahay mabda'an qabo hadday xitaa khalad galaan in la dhaho gacmo geli hoos ba loo dhaqaayo war aan wixii naxalisan in xidhay xabsi cid kuma yeeri karto oo walaal waa toon intaas qol kun oo qof oo la faajig jigaaw joogto ma xabsiga aroorta diloo waxba kuwii hore weyleynaysa way dilaysa way qabanaysa xana ku yeelooyo mabda'an waa mabda' xalaala waa mabda' tawriya waa mabda' gobonimo doona qof hadii loo xidhaa 200 qof hadii loo xidhaa waxba uma noqonayso laakiin ayagu inay midnimo Soomaaliyeed ka shaqeeyaan bay ahayd way garan waayeen Soomaaliya sax hadday garan waayeen waasaan ku sheegay doonta degayso ma la sii dego xidhiga Maxamed Ibrahim waa markii labaad marka hore uu xidheen system bay u waxan bay yeesho eegan xidhigiisu mar labaad bixdana wax sii yeelo marka inay wax weyn oo faa'iido ku qabi doonaan oo malaynayo xilliga noqotay Ilaahay u qadarin Maxamed Ibrahim uu soo bixi systemka uu buu wax ayagu ma wax sii fik colaadun bay siyaasadeen xeelad qofku markuu xil hayo umada u hayo waa burcad waa inuu is ilaaliyo fiican sababta weligeed kama hadho intuntu dib ku geysto weligeed hadii tuulo gudoomiye tuulo qof shacab wuxuu geysto hal hebel baa wuxuu geysto sababta waa mas'uuliyad saar sax marka inuu silaaliyaan bay ahayd haday silaalinta isgaran waayeen qof walba iyo xilligiisu ma aan bay noqon qof kasta iyo xilligiisu ma noqon marka intaas soo xireen maxay bireen maxkamad laba geyn waa iska xidhay waa qof iska xidhan oo xabuusa oo wanaag sidoo kale wali kama hadlin oo go'aankaas warbaahinta jabada way daawacday xiriga maxay Ibrahim laakiin go'aanka ku aadan mas'uul kaal ayaku ma sheegan oo xasan ku xidhnay una dhihin waa qof un xidhan damiinka xataa way diideen kor baa laga haystaa wax system la jiro marka intaan bay ku haystaan aad badan ma santahay bis intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeeni gaarka ah ee kaga hadlaynay halgama Maxamed Ibrahim Mursal oo muddo 5 cisho cadayn la'aan dambi la'aan maxkamad la'aan isaga xidhan waxa weeyaan magaalada Jigjiga Maxamed Ibrahim oo kamid ahaa kana mid ah golaha dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeniya ahna la taliyaha gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeniya intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka caawa waxa martiiga Mustafa Cilmi tani inta barnaamijkan mid la ku kulmi doono waxaan ka tagnaa sidaa iyo nabadgelyo